Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa ka mid ah dabeecadda marka bulsho meel ku wada noole ay ku sugan tahay xaalad xanuun faafa inay dareento cabsi ama baqdin. Taasina waa mid ku abuuran bini'aadanka. Innaga muslin ahaan, Alle waxa uu inagu manaystay 3 xayndaab oo uu nabigeenu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam. Haddii aad ilaaliso adoo aaminsan inuu Alle kugu ilaalinayo, wax dhibaato ku haleeli mayso. Haddaba 3 xayndaabta koowaadi waa adkaaru sabaaxi wal masaa, adkaarta iyo ducooyinka la akhriyo gelinka hore iyo gelinka dambe. Ta labaadina waa ذكر الخروج من المنزل، ducada la akhriyo marka laga baxayo guriga. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. fadligeedu sida axaadiista ku sugan waa kufiita wahudiita wawuqiit. Kufiita waa lagugu filnaaday, wahudiita waana lagu hadeeyey, wawuqiita waana lagu ilaaliyey. Ta saddexaadina waa haddii aad meel tegaysid sida goobta shaqadaada, goobta waxbarashadaada amaba suuqaba, inaad hal mar tidhaahdid acuudu bikalimaati illaahi taammaati min sharri maa khalaq. Fadligeedu sida axaadiista ku sugan waa inaanay waxba ku haleelayn ama kugu dhacayn ilaa inta aad meesha ka tegaysid. Ugu dambayn, waxaa jirta duco saxiix ah oo uu nabigeenu ku celcelin jiray mar kasta. ducadaasina waa اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجودان ومن سيء الأسقام. إلهي وحن كامل جليا حنونك برسك والدة جودانك يدمان حنوندا حنحن أوردا. وحن علينا ويدينيا عافمات ينبض قب أنيجا إذنك يدمان مسلمين تأوردا. اللهم آمين.